madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ku qayb galay furitaanka shirka golaha wada tashiga qaran oo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka shir gudoomiyay furitaanka shirku geeka ku furmay teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho ee la kawadantiisa maalmo ku socda magaalada Muqdisho intii uu socday shirka madaxda dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir mayan ku aransada doonaan dardargelinta doorashada xubno aqalka hoose baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya diyaarinta habraacyada doorashada iyo waliba weydiiyowka dhaqaalaha dhiman ee laga wada lahay doorashada iyo waliba sidii horlanka socda lahay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada koonfur galbeed Maxamed Ali Ibrahim bandhawow iyo furitaanka shirka warbaahinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ku warbiyay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta taariikhda ku beegan tahay 22 Agoosto sanadda 2022 waxaa xarunta ciidanka cirka ee Afisyooni ka furmay shirkii golaha wada tashiga qaran uu ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kulanka oo ay qayb ka ahaayeen dhammaan madaxda dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda dhexe uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulanka waxaa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka oo runtii dhammaan lagu soo wajahan iyo sidoo kale diyaarintii habraacyada doorashooyinka iyo sidoo kale waxaa laga hadlayaa raadintii dhaqaalaha ee doorashooyinka aqalka hoose ku bixi lahayd dhammaan waxaa dowlad goboleedyada qaar ka soo gabagaboway doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida dowlad goboleedka koonfur galbeed oo runtii 8 xubnood ee laga rabay laga soo doortay runtii maantana loo fadhiyo sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wuxuu mar walba u taagan yahay dardargelinta iyo sidii doorashada furan ee kaga dhici lahayd wadanka Soomaaliya guud ahaantiis gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka deegaanada koonfur galbeed oo runtii kuraasta ugu badan deegaanada doorashooyinka yaala u yahay runtii waxaan ugu bashaareynaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed uu hogaaminayo madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay mar walba diyaar u tahay in doorashada furan oo aan cid loo eexinayn oo sanduuq la soo codeyn doono ay ka dhici doonto sidii doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa maasantiin oo bilaa tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaalada Muqdisho ee caasimada dalka oo geeka ku furmay shirka wada tashiga madaxda dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo maalmo soo socda may madaxda yoon ku aransada doonaan dardargelinta geedi socodka doorashooyinka xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed teendhada Afisyooni magaalada Muqdisho